fagarayaasha dalku waxa hayeen kuwa saaka u siraadeen guud ahaanba xisbiga mucaaradka ee wadani degmada Kalabeer ee gobolka Sool waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn maanta looga dabaaldegay uuna ku soo bandhigay xisbiga mucaaradka ee wadani cududiisa taageero uu ku leeyahay deegaanada koonfurta gobolka Sool kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaankaasi Kalabeer ayaa isugu soo baxay shawaariciyada deegaankaasi iyagoona muujiyay taageerada ay u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu isla ognahay muddo dheer ayaa 7 sano waxay haystay xisbiga kulmiye waxaad ogtihiin inta umadu degto ilaa iyo jid banaan iyo ilaa iyo buuhoodle wax riiga oo biya oo dhulka laga soo saaray ma jirto adeer campaign baa lagu jira campaign ku iska kooban yahay xisbiga waliba maalin buu leeyahay maalinta xisbigu leeyahay laga bixi maayo xayndaabka xisbiga waxa laga hadlayaa wax qabadka xisbiga waxa laga hadlayaa taariikhda xisbiga waxaan ahay oday beesha bahar sanoo Kalabeer 8 jir baan ahay adduunkana wax badan baan ka soo joogay in badan waxayna haysatay dhibaato una qabatayn haddii ala dil dhaawac sharaf darro dumaysi ilaahay waxaan ka baryaynaa inay ka saara haddii aanu nahay degmada Kalabeer oo ka mid ah gobolka Laascaanood waxaanu u soo bannaan baxnay sida idin muuqata warbaafoor buu ku yaal ummadda intaa leeg waxay taageertay oo isugu soo baxday xisbiga wadani haddaan nahay degmada Kalabeer oo ka tirsan gobolka Sool waxaanu soo dhaweeynaa oo taageeraynaa oo codkayga siinaynaa xisbiga wadani madaxweynaha mustaqbalka ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cali baanu siinaynaa codka haddaan degmada reer Kalabeer nahay hayo idinkuna noolaada waxaan filayaa xafladda tani waxay tahay dad doonaya isbedel siyaasadeed ما شاء الله هذه aad baad mahadsantihiin waxaad xaq u yeelateen haddii aad weeyeen xuquuqdii aad lahaydeen inaad ka hadashaan oo doontaan inaad heshaan isbedel siyaasadeed waxaan filayaa in xisbiga wadani iyo magacan horta balladhamiyo horta magaca wadani waa aad iyo aad u macaan intaa ka bacdi waxaan u maraynayaa kulmiye dulin buu ahaa dulinna waa la iska saaraa marka dulinka waynu iska saaranaa haddii ilaahay qadaro innagoo waynu ognahay gobollada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan xabad iyo qax iyo baraka ahayn kamaynaan faa'iidin waxaad ka baxasaan ciilka waxaad helaysaan waxbarasho hadduu soo baxo xisbigu waxaad helaysaan biyo waxaad helaysaan caafimaad waxaad helaysaan nidaam wanaagsan wadani ha guulaysto Dr. Abdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Laascaanood